بسم الله الرحمن الرحيم داود يال كسو دوادا برنامج كينا نصيب سر رمضان oo maalin walbo marka laga reebo maalimaha jimcaha aad ka daawataan YouTube-ka GoTurkan Study barnaamijku wuxuu ku saabsan yahay su'aal iyo jawaab qofkii ka jawaabana wuxuu leeyahay abaalmarin kii ka jawaabi waayna wuu soconayaa aan fiirin hadaba marka isku dayga koowaad horeen ku soo dhawow barnaamijkan nasiib sar Ramadan adoo magaca ku bilaabayo waan dhawahay diibaan weeyaan magacayga diibaanna su'aalaha 1 ilaa 5 waa lambar baxs lambar 3 waxaa laga rabaa nabi waxaa jiro oo mucjisadiis ahaa hal neef geel ah yani hal la siiyey nabigaas magaciis neef geel ayuu ahaa mucjisadiis neef geel ahaa nabigaas magaciis sheeg waa hashii quraanka lagu sheegay tartiibtaada أي كذا خير وقت دراتيه برنامج كوبين يعني إنه سو كوبال روا ده هسه وحلا كتور لقيها إنه صح كون خط ويقول جست مسكحة ويقبح بحث يكسوها هي النبي برنامج كوا برنامج أو صعناي هاي وما سنت بسم الله كسر دو برنامج كان نصيب سر رمضان مركور مقعكم بلو سعيد أحمد علي نمبر هذا 2 إلى 5 واي 3 waxaa sheegtaa hashii quraanka lagu sheegay nabiga la siiyay nabi saalax waay hambalyo oo ku guuleystay jawaabta waa nabi saalax bismillaah ugu horeen ku soo dhaw barnaamijka magaca ku bilaabay astaxo su'aalaha 1 ilaa 5 waay number 3 baxay number 1 waxaa laga rabaa salaadaha waajibka la tukado meeqa waa habeen iyo maalin inta raqayeen toona dooraka waa ku jawaabay hambalyo ugu horeen ku soo dhaw barnaamijka nasiib sar Ramadan oo magaca ku bilaabay bismillaah magaca waxa maxamed wardheer cali su'aalaha waxa waay 1 ilaa 5 lambar 1 waa baxay lambar 3 na waa baxay 2 4 5 baxso maxaan baxsaa lambar 2 iyo lambar 4 lambar 5 lambar baxso lambar 4 majaalo iyo 4 lambar 4 aye waxa laga rabaa fircoon ninka la yiraahdo xilliga ayuu noolaa nabiga ayuu noolaa jiray xilliga uu noolaa sheeg zamanka nabiga uu noolaa nabi muuse la noolaa hambalyo fircoon wuxuu noolaa nabi muuse alayhi salaam barnaamijka nasiib sar Ramadan oo magaca ku bilaabay magacayga waa yeeni xaaji nuur cumar ay su'aalaha waxay ahaayeen 1 ilaa 5 laakiin laba su'aal soo hartay waxa soo haray number 2 iyo number 5 number 5 waxaa laga rabaa salaada markii la farad yeelay nabi sallallahu alayhi wasallam salaada ugu horeysay uu tukaday magaceed markii salaada la farad yeelay salaada ugu horeysay oo nabi uu tukaday hadda isku day waxaan duhur ahayd hambali oo ka jawaabay وكما سنتين إن شاء الله وإيدك ما هتقلنا أيوة السلام عليكم إن شاء الله وجهرين كسر برنامج كذا مقعك بلاوايو أقول عبد القادر على عبد القادر هل سؤال صهرت ديج بني آدم ما يخلي تروى لتر أهان وشك أفر مخول إلى تنتر وما سنت ما لنا هلين جوابت بسم الله وجهرين كسر برنامج كان نصيب سر رمضان مقعك بلاوايو مقعك سكري حاجة هل سؤال صهرت الحين هذا هاي ديج بني آدم ما يخلي تروى ديق بالآذن كان كده حجروا ما يخلي تروى بالآذن ديق ساعة قياس الجواب بس كده قياس حمل الله يا والله يا ترون جديد ما لك جواب لكن ما هليلي ugu horeen ku soo dhawo barnaamijkan ee taabagelinaysa shirkadda GoTurkan Study oo su'aalaha magaca ku bilaabayo magacay waa cali aadan maxamuud oo ku dhawahay barnaamij cali hal su'aal soo hartay dhiig bani aadan ku jiro ma yaqaan tira lagu qiyaasay boqolkiiba 70 لتر 70 لتر لتر من آدم بيجرو بس عن لهم وما سنت هذا وجهرين كسر برنامج كان نصيب سر رمضان مقعك بلاواي مقعي وعبد الفتاح أحمد علي الفتاح سؤالي واحد ماذين هل سؤال سو هرتين dad badan way soo hareer martay su'aashu waxay leedahay dhiigga bani aadanka ah ma yaqaan tir waaye bani aadanka nool dhiigga ku jiro ma yaqaan tir waaye isku day
saddex boqol waa santahay maadan haleelin mees waa tahay daawadayaal barnaamijkeeni halkaas ku soo gabagaboobay hal su'aal soo hartay waa laga jawaabi waayay su'aashaas oo ahayd dhiigga bani aadanka waa meeqa litir jawaabtu waxay noqonaysaa waa 6 litir 6 litir kaliya ayaa ku jiro dad qaar waxay dhaheen 300 dad qaar waxay dhaheen 70 litir marka waa maasantihiin barnaamijkan waxaa ka daawan kartiin YouTube-ka shirkadda Go Turkan Study. Wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.